heerkulka siyaasadeed ee gudaha dalka waa mid aad u sarreeya waxaana ilaa iyo hadda muuqanin hanaan siyaasadeed oo heshiis lagu yahay kaasi oo lagu gudagali karo khilaafka dhinaca siyaasadda ee ku saabsan arrimaha doorashooyinka ee heer qaran. xukuumadda federaalka Soomaaliya uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa weli ay taagan tahay hanaan siyaasadeed oo ay natiijadiisa ay sii ogtahay hase ahaatee uu mugdi badan uu ku jiro iyadoo kooxaha kale ee dhinaca siyaasadda kula loolamaya aysan hanaankaasi raalli ka ahayn. waxaa la filayaa in wareegga saddexaad ee is-aragga mucaaradka ku midaysan madasha samata bixinta Soomaaliya iyo madaxweynaha dowladda ay maanta kulan ku yeeshaan Villa Soomaaliya. fadhigaasi waa mid isha si weyn loogu wada hayo waxaana la qorsheynayaa inuu qabsoomo maanta oo taariikhdu ay tahay 20 bisha Luulyo 2025 waxayna dhinacyadu hadda ku jiraan doodo dhexdooda ah oo qolada kale ay u diyaar garoobayso sidii ajendaheeda ay u marin lahayd. maxaa laga filan karaa haddaba shirkan maanta furmaya? waxaa laga filan karayaa laba arrimood oo kaliya. arrinta koowaad oo ah inuu shirku noqdo shir ay ka soo baxaan natiijo shacabka Soomaaliyeed ay u riyaaqaan sida in la hirgeliyo heshiis wax ku ool ah oo aan la isku diidanayn la iskuna raaco nooca doorashada ay noqonayso 2026. arrinta guddiga doorashooyinka oo wax laga bedelo dastuurka dalka oo iyadana laga heshiiyay arrimaha iyo qodobada xasaasiga ah ee wax laga bedelay iyo heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay waxaa loola jeedaa in wada xaajoodka la ballaariyo oo la gaarsiiyo madaxda maamul goboleedyada oo ugu horeeyaan Jubbaland iyo Puntland iyo in dhammaan siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo kuwa xukunka jooga ay shirka isugu yimaadaan shirkuna uu noqdo shir daahfuran. sidoo kale waxaa lagama maarmaan ah in la dhageysto aragtiyaha iyo talooyinka dhinacyada kale ee ku lug leh arrimaha siyaasadda. qodobka kale haddii ay madaxtooyadu ay ku adkaysato rabitaankeeda siyaasadeed isla markaasina mucaaradka ku midaysan madasha samata bixinta Soomaaliyeed kala qaybsamin waxaa markaa kadib la filan karaa hubanti la'aan siyaasadeed oo baahsan oo dalku u galo. xeeladaha siyaasadeed ee madaxtooyada ciwaanka Villa Soomaaliya ee shirkani waa wada tashi halka ay mucaaradku aaminsan yihiin wada xaajood waxaana dowladda federaalka matalaya oo miiska u fadhiya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo kaliya. mucaaradka ayaa horey miiska u soo saaray iyaga oo la rumaysan yahay in madaxweynaha uu burburiyay golihii siyaasadda ee wada tashiga qaranka oo ka koobnaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya. madaxtooyada ayaa u muuqata in shirarkan ay ka doonayso inuu noqdo shir iska jiitama oo aan wax natiijo ah laga gaarin gaar ahaan in la xakameeyo wax walba oo ka hor imaanaya mashruuca siyaasadeed ee dowladda. doodihii shirkii hore waxay u badnaayeen adkeynta midnimada dalka iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada. dhinacyada ayaa markani diiradda saari doona ka gungaaridda arrimaha lagu muransan yahay qodobada dastuuriga ah ee la bedelay iyo sida lagama maarmaanka u tahay in la helo heshiis siyaasadeed oo ay qayb ka yihiin Puntland iyo Jubbaland. sidoo kale waxaa doodaha socda ee madasha mucaaradka iyo madaxtooyada ka maqan madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka mid ah saamiilayda dhinaca siyaasadda ee ugu miisaanka culus. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ciyaaraya taba siyaasadeed oo uu ku kala qaybinayo safka mucaaradka taasi oo haddii ay dhacdo sida madaxweynuhu rabo noqon karta dhirbaaxo soo gaarta hogaamiyaasha mucaaradka. farsamooyinka marin habaaminta iyo waqti dhumiska ee Villa Soomaaliya ay ku khiyaamayso mucaaradka iyadoo waqtiga la jiidayo waxaa ka mid ah ku mashquulinta mucaaradka shirar waqti lumis ah inta la gaarayo dhamaadka muddaxileedka madaxtooyada oo ay ka hartay hadda 10 bilood oo kaliya. faa'iideysiga iyo qiimeynta meelaha ay ka jilicsan yihiin xubnaha madasha samata bixinta ku midaysan. tani waxa ay noqon kartaa in laga faa'iideysto khaladaadkooda hore ama xogaha shakhsiyeed si loo weeqo sumcaddooda ama kalsoonida dadweynuhu ay ku qabaan. isticmaalka xeelado si loo abuuro sawir khaldan ama lagu kiciyo shakiyo aan jirin oo kala qaybin ah in la qariyo ama la bedelo xaqiiqooyinka dhabta ah ee dhaawacaya iyadoo la abuurayo muuqaallo cusub. kala dilidda mucaaradka dhexdiisa iyadoo la abuurayo xasarado iyo kalsooni darro u dhaxaysa xubnaha mucaaradka taasoo keeni karta burbur gudaha ah ama midnimo la'aan marka ay timaado doodaha miisaanka saaran ee doorashooyinka iyo dastuurka. shirkan loo madleeyahay maanta ayaa waxaa horey u diray madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dini oo ku tilmaamay tallaabooyinka madaxtooyada inay yihiin madhalays ay tahay in aan waqtiga la isaga lubin. waxyaabaha sii xoojinaya doodaha Jubbaland iyo Puntland ee kaga aragti duwan yihiin madaxtooyada waxaa ka mid ah iyadoo xukuumaddu ay weli sii wado hab dhaqankeeda taban ee ka dhanka ah Jubbaland iyo Puntland. wakiilada beesha caalamka ee taageera Soomaaliya ayaa iyaguna isha ku haya shirka maanta furmaya waxayna ka warsugayaan suuragalnimada
in shirkaasi lagu gaaro horumar iyo natiijo la taaban karo. Waxaa la rumaysan yahay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu shirka mucaaradka uu isaga dejinayo cadaadiska wakiilada beesha caalamka ee ku sugan Muqdisho. Waxaa la isweydiin doonaa go'aanka beesha caalamka haddii ay fashilmaan doodaha siyaasadeed ee u dhexeeya dhinacyada Soomaalida. Fadlan daawade, adiguna wixii aragtidaada nagula wadaag dhinaca faallada ama commentiga. barnaamijkana like garee oo share garee, channelkana subscribe saar oo ku soo biir baraha aan ku leenahay bulshada. Mahadsanidin.